معو حسين waxaa tahay gudoomiyaha kooxda Banaadir waxa aad magaalada ka tirsan ka asaastay dhalinyaro iyo caruur aad u daayar oo runtii aad barto maxay ahayd kubadda noocyada kala duwan fikradan goormay kugu dhalatay macoo bismillaahir rahmaanir rahiim kulay kubadda waxawaaye kubadda yaranteeda soo ciyaari jiray waxaan jeclaa inaan ciyaaro waa isku dayay ilaa heer qaran ka gaaray xilligan ka duqoobay aan ka fariistay ayaan waxaan aasaasay inaan caruur yar inaan sameeyo waata marka caruurtan waxa ka bilowday magaalada ka tirsan Harlem caruurtan daadooda imisa u dhaxaysa caruurtan daadooda wuxuu dhaysaa 6 sano ilaa 12 waa gartay marka caruurtan ma adiga ayay shakhsiyan kugu imaado mas'uuliyiintooda ayaa ku yimid mas adiga doona caruurta waalidiintooda ayaa keenaan meesha oo wali waalidiintooda ay joogaan 4 saac maalin alla maalintay ay ciyaar jirto maalintay match jirto waalidiintooda way wataan way keensadaan waana joogaan ilaa haddana way joogaan maanta tirada markii hore ku asaastay ilaa iminka horumar miyaa sameeynaysan mise waxaad dareemaysaa in maxay ahayd wali sidaadii ataa tiradan ku bilaabo markii hore waxay ahaayeen ilaa waxay ahaayeen 30 qofood ay ahaayeen hadda ilaa waxay gaarayaan 100 ilaa 120 cunug gaarayaan waa garto isla magaalada ka tirsan isla magaalada ka tirsan waa tahay markii yaa kula shaqeeyay waxay la shaqeeyo oo mahad iska leh waalidka ay la shaqeeyo qaasatan Xuseen Nuur Buushe oo gacan yareeyga ah waxa kale oo ila shaqeeyo magaciisa Abuukar Karish waxa ila shaqeeyo waalidiin badan Maxamed Cabdinaasir wiilkiisa Cabdinaasir oo kale waxa ila shaqeeyo kale Jackson waxa kale oo ila shaqeeyo ciyaartoy badan Liwan Malay aadiyad marka ciyaartoydan ama dhalinyaradan marka inta tababarayso ma maalin kasta ay tababar ku qaataan qaabkee ayaad u kala tababartaa way kala da'waawen yihiin maxaa u sameeysaa kulliba nimba da'diisu la ciyaaraa 6 sano ilaa 7 sano isla dheelaan 8 sano ilaa 9 sano isla dheelaan 10 sano ilaa 12 sano isla dheelaan 14 sano ilaa 16 isla dheelaan waata macoo maxaa ku doorsanaysaa ama maxaa ku iibsanaysaa in waqtiga inta ugu badan caruurtana geliso maxaa ku ilaawaysaa waxaan ku ilaaway caruurta badan waxa iiga fiican aan maartay aan qiimo aan sharaf oo ku yeelana 2 cunug 3 cunug iiga soo baxda ayaan ku ilaawi karaa oo macnaha oo heerar kala heer qaran ay ka gaaraan ilaa iminka dad indhahooda markaad aragtay aad isleedahay alla ilahay caruurtan way ku haboon yihiin xilligaas ma jirtaa waa jirta caruur badan oo fiican oo maanta hadii la gacanta saan loogu haayo shalay marka bilaaway caruur waxa jirta dhulka joogan hadda maanta la dhihi karo maartay quality-gooda aad 100% ku fiican yahay waana iskugu jiraan caruur yar oo wali ku fiican orodka ku fiican jirto caruur basket ku fiican jirto caruur football ku fiican jirto kulli way isku jiraan markay gaaraan ilaa 15 16 gaaraan ayaa rabaa inay orodka markaas si fiican u la qabsadaan laakiin hadda waxaan ku wadaa trainingkii kubadda cagta ku wadaa hadda kubadda cagta kaliya kubadda cagta ku wadaa hadda waa gartay marka misleedahay marka orodka kale la yiraahdo meel ay ku ordi karaan ma geysaa waageeya badana waxaan ka dhaadhiciyaa iskuulka inay maaragtay markii la sameynayo iskuulkooda subaxdii ay sameynayo inaan iraahdo orodka dadka ugu fiican inaan naqatiin aan kula dardaarma waana natiijo fiican way kan markaan weydiin waxay yiraahdaan koowaad iyo labaad iyo saddexaad aan soo galnay yiraahdaan dhamaantood waata macoo waxaad ahayd ciyaartoy hore oo Soomaaliyeed oo runtii si weyn looga yaqaan gudaha wadanka Soomaaliya dhalinyaradan ama caruurta yaryar ah tababarto meeyga kaligood ayaa ciyaaro oo dhaxdooda ayaa is ciyaarsiisa mise waxa jiro is dhaxgal ah sameeyso oo wadka kale la ciyaaraan wadankan u dhashay meeshu dhishka aadan ama janib kala aadan waqti hore sanad ka hor oo ahay 2011 kale waxay ahaayeen inay kaligood ciyaar jireen markaas wax aqoonsi ma lahayn la waqtiga hadda la joogo 2 sano waxay ciyaaraan wadanka seerigooda ka ciyaaraan ilaa waxa ciyaaro ilaa 8 jir ilaa 16 jir waxay ciyaaraan 3 group ayaa hadda sanadkan ciyaarto بريتو هدو اللي يراهدنا وحي عيارايا 14 جركا عيارايا بريت أحدنا وحي عيارايا 10 جركا عيارايا سادرتي marka waxay la ciyaarayaan caruur kale oo isulish ah oo iyaga lamida
caruur kale ayaga lama sida koox kale waa sida nacam waxaa loo cayaaraa waqtigeena bersamaadkeena sida madbacad oo kale joon oo kale ayaa saas ayaa loo cayaaraa marka horyaalka wadanka la cayaaraa okay inta ubadkanaad haysid natiijo ma ka soo hooyeen gobolkan aynu joogno ee Soomaaliland waa ka soo aad ugu soo hooyeen waxay cayaareen ciyaarta la yiraahdo in hool ciyaarta afarta ciyaareen hoolka qaboobay ciyaareen waxay ka soo qaadeen maaragtay in 8 gobol oo magaaladan ka tirsan ayay ka soo qaadeen koobka waa gartay koobkii ka soo qaadeen waa taa maxay kala sameeyeen marka horumarkii sanadkan haddana waa wadnaa haddana waxa ugu horeeyna hadda in 10 jirka dhalinyarada 10 jirka ayaa ugu horeeyna hadda waa gartay goorma ciyaarayaan ayaguna ciyaaraan sabti xaddi ciyaaraan haddii alla yiraahdo waa taa macow hawshan aad wado caruurtan la tababarayo barnaamijyada la tababarayo bulshada kale sidee ku aragtaa hawshan aad wado maxay ku leeyihiin markay arkaan kugu dhiirigeliyaan ama ku niyijabiyaan wallahi kulay bini aadamku kulay nimba fikir haystaa kulay bini aadamka waxa ugu wadanka dadka ugu nimid ayaa maalinta ciyaarna ayaa yiraahdaan war meeqa sana jirtay waqtiga meeqa sana kooxdan asaasanta marka iraahdo sanad iyo laba sana hadaan iraahdo madaxay qabsadan oo sidaan aan tihiin laba sana ana ko 50 sano iyo 40 sano oo jirno ururkeena ayaa saana la ciyaartay saan nooga badiseen madaxay qabsadan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay in ilmaha maaragtay ay ku tarbiyaan maadaama ay wadankii ay joogin ay 4 mitir ay dhex fadhiyaan carruurtu hasoo saaran banaanka oo saar caafimaadkii helayaan isboortiga caafimaadka wata macow waxaa jira ciyaartooy adiga kula mid ahay oo hadda Yurub qaybo badan ka mid ah joogaan haddana laga yaabo inay ku daawanayaan maxaa u soo jeedinaysaa ciyaartooyda daadaada oo kale ciyaartooyda kale waa dad iga horeeyay shaqadan qabteen way jiraan ma hadda Allah ka gaarsiiyay sida ninkii igula dardaarmay daargacmay munishibi ciyaaraya ayuu yiri culays badan ayaa kala kulmi doonta wuu yiri kullayba laakiin culayskaas uma arkay waxa ku jiraan laba wiil aan dhalay oo hadda mid 14 jiro mid 13 jiro oo hadda lama fiican hadda waqtigii aan gacanta ku qabtay la hadda wax iska bedeleen marka kuma qasaarin laakiin waa iska jirtaa in waqti kasto واسكت الوقت كستين دليل إياه مرات الصومال واسكت تقانا نيجب واسكت جرتا لكن دقلو دقي ما يد لكن محاوسو جديد نسا يقول إن سيدانو كالعرورة وتوبران قبل ذي جوجان كرة ترنسا وحندي لا نكستو عيارتي الصومالية عن جيسة عم بلعب عن وكل درس كيسة عم بعدين وياهي وحصل صار أدبو ما سنتاي كان سنوح معلن معو حسين أو ها معلن أن كوحدة بنادر إسلام كانت توبرا عرور أدو فربضان أو صوماليات أو كنا المجال كترنا هالم معو حسين وحا وهراء وقتر سنة عياريها النادي قرن كصوماليات وحا وكسر من نقضي كوحدة مطبعة واجي برسماتك معو يمكن يكونوا ليا مجال كترنا هالم ودن كسويدن كترنا هالم وتولو أيكو بهوبين بعض إسبورتك الصوماليات أنت هذا بدن وحا كنا القدومية أولمبيك الصوماليات وحا كنا العياريها la yaqaano caana waxa kale ku nool mas'uuliyiin ka tirsan bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ee dalkana Soomaaliya macow aad iyo aad baad u maasantahay shukran TV-ga SNTV aad baad u maasantahay guud ahaan barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya dhanka farsamada ee kaamirada waxa gacan iga siiyay farsamayaqaanka daadayar Mustafa Xasraag Mustafa Khan waa Cabdiraxmaan Xudayf wadala tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad geliyo Digsada asagin